Fridig Odembo Owino or aha muwadin Kenyan ah. We are very painful. It is so painful. It's so sad for us. So we are only appealing for justice for Fred. He has left a young family. So that even the rest of us can also be free or even be happy to come to work in Somalia. Because even right now, a number of us, even including me, we fear because the way Fred died. So we are only appealing for justice for Fred. He has left a young family, a very young family, indeed a young one. Even his mother is also still young. He does not have a father, and he was only the breadwinner. So we are only asking for justice. Thank you. I have trust in the court of law. And my request to the entire Kenyans, our colleagues, is only let justice prevail. Let justice be done. We will be happy if we see all the justice be done to one of us. We Kenyans and Somalis, we are like brothers. We've been here and we have been good friends. So only justice I request. qaabka dilka uu dhaca waxay ahayd eedeysane Xasan Cabdiraxmaan inda yare wuxuu ka shaqeynayay goobta dilka uu ka dhacay goob u dhow oo guri ayuu waardiye ka ahaa marka meesha waxa ku taala meesha laga shaqeynay waxa ku taala tubo yar oo xogaa biyaha sii deysay Xasan meesha waardiye uu ka ahaa tubada biyaha imay jirtay xogaa dhibac soo gaari jireen waa soo baxay asii nin kale oo shiin la yiraahdo waxay u yimaadeen shaqaalihii goobta joogay ee ka shaqeynay oo ninka jirbiga meesha uu ku dhintay wuxuu yiri maalin ka horeysay maalinta falka uu san dhicin maalin ka horeysay ahayd wuxuu yiri biyahan tubada daad iga xirin idinka ka shaqaynaa maalin dambe la soo laabtay waa soo baxay nin kale ka socdaan goobtay yimaadeen waxay yiraahdeen tubada shaqada joojiya sida dhamaan waqtiyaasha aan ka qornay cadimaan ka qornay waxay yiraahdeen shaqada joojiya Soomaalidii waa faantay waa joojiyeen qaarkii Kenyaatiga meesha joogay shaqadooda iska sii wateen midna kor u saarnaa oo qaybta balaadka u xil saarnaa balaadka mutreelka oo subinay arintii uu maqlay marka hoos u soo aaday eedeysane Xasan Cabdiraxmaan marka soolidii kor u qaatay xabadu riday sida dhamaan aan ka soo qornay marqaatiyaasha xabadii waxay ku dhacday ninka Kenyaatiga marxuumka daqiiqada kadibna waa markii xabadu uu riday xogaa buuqyar meesha ka dhacay